الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم ولا الله الصومالي ملك جوبتان بإله سبحانه وتعالى ذكوان ما يلو عدي لبنبك الله كقاضو عدي دن الله وفي انت بان الله ديقو انت بكت الله بكسيو انتي لمتى الله ونحرستو والدينتين الله ونحرستا نغن الله نوغد ونحرستو دالك دينتا دادك يدور دين مدبا إله سبحانه وتعالى هنو بالبادي ما انت حكار لا يصدح قضب كواد أجانبتا دقالك كسو قادة ومدى الصومالية دقالك اللي قولت جيرو بورها بنتلان كلمة لك ورمية شركي إمارات كوكو قبتي دلكيسا World Government Summit أما شركي لو قبتي دولة لها أدون لو ما يقدري وأي كغيب قلان مدحوينا عرو سومالي لان إيو وسيرو بنت كترسان صوماليا كلمة لك ورمية ترام يسبدل كمرايكن كدعي سامينتا uu ku yeelan karo caalamka muslimiinta iyo Soomaaliya iyadana si gaar ah kelmada ka oranaya waa markii waade jab iyo naasabeel ba ka raacay argagixisadii ku soo duushay dalka Soomaaliya ee ka soo duushay caalamka oo dhan ummadda Soomaaliyeed markaan dhihi jirnay war waa la isu soo bahaystay oo dalkan duulaan baa lagu yahay yaa filayay in 87 xubnood lagu dilay habeen hore dagaalkii ah 87 xubnood oo hal qof oo Soomaali ka yahay yaa filay waxa loo qabay waxa buuraha ku jiro Daesh la sheegay inay tahay dad Soomaali 86 qofba wadan Carbeed buu ka soo jeeday goorma Carab saa u dirifnay quraanu sheegay Carabta shacabkeeda iyo dawladaheeduba wax dan ay noo hayaan waxaan xaasidnimo ahayn oo ay nagu dhaqmaan ma jira marka laga reebo dad aad u yar oo aan tiro badnayn إلهي سبحانه وتعالى ما قرنيه دين تاينا بريان عربته دلال كودا قادة شوكتا دلال كودا واحد شوكوان دين بقى من سنين ودمضوا ذا كريستان قيبة وكلا قيبسان قالوا يا مسلم أما كريستان يا مسلم ما دين تاي فهمس نيك السيريان كاوا نيك دين تانا فهمسيني أما مصري كاوا نيك دين تانا فهمسيني كودا كودا شوك قالوا لا مفهمسيه ها كسر الريو هل كان لوجو صور halka waxa la cadeeyay markasta oo la isgalo ciidamadu inay nag ka dhigayaan arintaasna waxa keentay waliba iyagoo ah niman buuraha ku tababartay oo buurahoodii joogo oo godad ay yaqaaneen iyo dhagxantoodii loogu soo galay waxa Ilaahay mahadiisa markasta in laga guul laga gaaray oo markasta iyagoo dhimashada badan yihiin meesha ay 87 nin kaga dhimatay ciidamada 27 qof baa kaga dhintay afar gaari oo qarax wada ayay isku soo miidaamiyeen oo weerar ku soo qaadeen iyo rag qaraxyo ku xiran yihiin dad ordayo qaraxyo ku xiran yihiin 27 nin oo kaliya ayaa ku geeriyootay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala shahaadada hawa aqbalo dhaawaca tiro badnaa inkastoo uu badnaa dhaawac kulligiis wax yar marka laga reebo dhaawac fudud oo isla markiiba dagaalka dib ugu noqonay waxa la yaab leh wiilka gaariga qaraxa ugu badan ku xiran yahay oo birta aan xabadu karin muraayada looga dhigay god ka yar oo ay dalooshadeen oo ay iyagu ka wadayeen ka toogtay gacanta alla kuma gooyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dunya aakhirada ku karaamay wiilasha geesiyada waxa leeyahay halkaas iyo meel uga sii dhow baan idinku ogahay waxa la yaab leh dadkaas ajnabiga ah meel kasta oo lagu laayay dhowr bari ka hor kuwii lagu laayay 50 iyo dhowrka ahaa ee buurta dhakadeeda la dhigay laba nin baa madow ka ahaa labadana Afrikaan bay ahaa dadkaas airportada ay ka soo degeen baday intooda badan ka soo galeen Xasan Sheekh Maxamuud 6 maalmood markuu joogay ayuu barnaamijkii NAV4 oo dawladda isaga ka horeysay ay kansashay oo ay weydiisatay international community-ga iyo security council-ka in laga saaro Soomaaliya oo European Union ku watay oo suntana ku aasa kalluunkana booba iyo khayraadka badda gurta nimanka iyaga oo laga saaray 6 bari markuu joogay soo celi iyadoo la sheegay inuu lacag qaatay Xasan waxa weydiinaya maxay ilaalinayeen intaas oo ajaaniba markay ka soo gudbayeen badda kuwa koonfurta ka dagaalamaya qaar badan oo kamidi baddaas ka soo gudbay xoutiyiinta heshiis waxay ku yihiin in badda cas iyo badweyntaas noo dhaxaysa anaga iyo Yaman in la qalalaas la geliyo saa darteeda loo soo gudbinaya waxaan hadda ka hor marar badan iri Soomaaliya duulaan baa lagu yahay caalamka oo dhan baa duulaan ku ah
warmarkhaatigi ma haysaan 87 qof oo ka kala socda wadamada carabeed oo dhan ma ujeeda ma haysaan Israa'iil ba xataa duulaanka ku jirta qaar aan la aqoon cadaan ku dhintay oo dib lagu ogaan doono waxa la yaab leh waxaa la qabtay simkaaro xoogaa mid baa la furay oo lagu guuleystay in la furo 180,000 oo dollar ba ku jirta يعني ماشا خيرات بلغا قرا ودما عالمية قيبكا شركة واوين او قاركود هدير اي بوساسة جوغان او دبقال كو سعودو رك بدن با عراري دونا بحسن دونا صوماليا ان دين لهاين مجرمين او سرقيت سوا او يغو حنبارسن بيزنسكا لعagtana u dhaqa waxaan loo sheegay oo la cadeeyay qaar in lacagta lagu gado xoolo loo dhoofiyo Carabaha kadib lacagtaas kaashka ay Daesh halka ka qaadato waxa la xaalufinaya waa ummadda Soomaaliyeed iyo hantideeda mid qaad ku gurta mid argagixisa u gurto mid dawladda soo duulay oo diyaarada wata ay ku guraan dahab iyo luul ay ka guraan buuraha iyo badaba yani waa loo soo shaqo tagay dalkan markaan leenahay iska hadlimayno waxaan kaloo halkan ka bogaadinayaa ciidamada Hiiraan ka dagaalamaya oo la diriraya kuwa mujrimiinta oo khawaarijta walaalahoodii kale gasto aysan isjeclayn oo waxay ku dirirayaan badeecada mida inaga layna ku diriraya iyo dhaqaalaheena iyo hantigeena iyo cirdigeena inay iyaguna ay iska jabiyeen oo ay dhulka la jareen Ilaahay subhanahu wa ta'ala idin garab galo ummadda Soomaaliyeed waxa ugu baaqaya labada qolo oo la dagaalamayo la xarbiyay cadawga Ilaahay iyo cadawga ummadda Soomaaliyeed in la garab istaago oo hanti iyo af iyo maal intii wixii la heli karo lagu garab istaago in dhiig la garab istaago in ciidamo loo diro meelay joogaanba dadku inay u gurmadaan Soomaaliya duulaan lagu yahay in Soomaaliya laga xoreeyo mujrimiinta magaca diinta ku gabanaya ee Mooriyaanta qodobka labaad imaaraadka waxay qabatay shir ay ugu magacawday shirka dawladaha adduunka waxaa ka qayb galay madaxweynaha Somaliland Dr. Ciro waxaa kaloo ka qayb galay wasiiro ka socda dawladda federaalka Soomaaliya oo uu kamid yahay Biixige wasiirka maaliyadda wasiirada waxaa lagu qoray kan sportska iyo kan maaliyadda inay ka socdaan Somaliland khalad dhacay maaha haybo maaha ku talagal xasan waxaan uga sheegnay imaaraad ummadda Soomaaliyeed aan u sheegnay isaga garab maray dawladda ka horeysay dalka ka saartay isaga soo ceshay tii hadeer aan ka hadlayay oo ahayd EU markii laga saaray badda isaga soo ceshay wax walba uu soo ceshay in jab ka raacana sharaf iyo karaamo ummadda Soomaaliyeed uma aha laakiin isaga uu istaahilaa he deserves inay saa wax ugu dhacaan waxaan arkay Sahan Group iyo Matt Bryden nimankii uu ku casumay cali masaarkiisii iyagoo ku xukuman dambiilayaal ku xukuman 5 sanadood xariga oo maxkamadda banaadir ku xukuntay oo saa u rifaya adaa kasbaday hada xasanow inna eersan dawladnimo xumadaadii iyo ganacsiga aad u fahamtay dawladnimada ganacsi iyo lacag uruursi tahay imaaraadku ay kugu sameeyeen wad maqlis wuxuu yiri ninka wariyaha wuxuu yiri imaaraadka bolisigiisa iyo DP World waa shirkada dawladdu ay leedahay dekedaha u maamusha wadamo badan oo caalamka ah dekeda barbarana haysata iyadoo maalgelisay boosaasana haysata ayuu wuxuu yiri shirkada bolisigeeda iyo dawladda imaaraadka bolisigeedu waa dawlad Somaliland la yiraahdo oo meel gaar ah degan oo 4 milyan ay tahay maganaysa dadkeedu inay la dhaqmaan oo la xaalaan si dawlad madax banaan Ethiopia ay halka ka dacmiyaan sababtay u doorteen ay tahay juqraafiga ay ku taalo madaxweyne Cirana wuxuu ku daray in Mareykanku ictiraafayo kelmadda oo ku noqon doona ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasaaraddiisa arrimaha dibadda shalay markii la ceyrinayay dawlad walaal ah baan la eri hadda kor waxaan idin sheegay labadiisa xaasba in guriga laga siiyay imaaraadka oo dubay guriga laga siiyay marka ma nin caruurtiisa la biilo oo lacag raadinayo aan haba yaraatee xorriyad iyo xornimo midna haysan baa wax iska dhicin karo dawlad xoreyn kara Soomaaliya
waxaa ku dhacday azma ku dhacday dhib baa ku dhacay adduunkoo dhan baa qiil iyo khalkhal galay kadib markii Donald Trump uu xilka qabtay Soomaaliyana si gaara maxaa yeelay ninka gacanta ku haya xilkeeda ayaa ah ninka aynu naqaan ninka ay wadamada yaryarka ay u dhaaranayaan oo say doonaan ka yeelayaan oo aan warqad xataa ku dhicin inuu soo saaro uu ku cambaaraynayo inay yiraahdaan boolasiga iyagu waa inaan dawlad gaar ah ula dhaqano Soomaaliland oo dalkiisa loo kala gooyo ma ujeeda isagoo arkay in la kala gooyo dalkii sharaf xumay ahayd qaadaray ahayd ceeb Soomaali ku dhacday bay ahayd xasanow dawladnimo waxba kama taqaanid mana la rabtid horaan u sheegay labada qodobba inaadan rabin iyo inaadan xabad ka aqoon meelay u socotay meel ka socotana aadan garanayn Azerbaijan iyo meelahaas iska wareeg safaradaas lacag ku ururso adaas yaqaan waa lagu daalay waxna lagu sheegi maayo nin wax qaatana ma baahidba maxaa yeelay maba garanaysid meesha wax ka jiraan meel kale wax ka raadinaysa qof nafac iyo calooshiisa nin baa waxa la weydiiyay oday xasan xageebu dalka u wada calooshiisa u wada been ma sheegin kun guri haduu ku soo ururo hankaaga dhan saasa lagu la dhaqmaya waa imaaraadkii walaalihiisa iyo saaxiibadiisa ay lacagta siinayo hadeer ya way wax saa ula dhaqmaya waa iyaga ahaan ku itiraafay ee baasaboorka Soomaaliland fiisaha deganaanshaha ku bixiyay waxa ay noqon doonaan dalka ugu horeeya oo saamiya Soomaaliya dhibaatadeeda horeyna ugu dhaarteen laakiin isagu dhagu ka furaystay siyaasiyiin badan oo jawaasiis waa iyaga dhagahay ka furaysteen waana soo xanjeysanayaan indhaha marka la yiraahdo imaaraadku cadow weeye marka la yiraahdo indhaha soo xanjeysanayaan kalmada intaas ka oranay qodobka ugu dambeeya Trump soo gelistiisa isbedelka caalamka ku dhacay horta nimankii Carbeed ee muslimka ahaa ee ku noolaa North America ee Trump lahaa loo coday alla ila korta kuwa musiiba ka raacday waxa kale oo bal ku dhacday oo dharka laga qaaday oo ceeboobay madaxdoodii mid indhaha saas leh saa indhaha leh mujrim ibn mujrim abiisna jaajuus buu ahaa asna waa jaajuus waa ceebeeyay ashraaf iyo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo awlaadiisi inay ahaayeen waa ceebeeyeen labaduba kana waa mujrim inta loo yeertay oo hawada loo mariyay faraad iyo handadaad baa la yiraahday bal waran 2,000 ciyaara baan kaxaynayaa isagoo indhaha saale waa baqaya naftiiba haysa xoogaa lacag u siisanaya sharaf male karaama male diinu ilaashada male yani waa nooca bawdiyaha la isla wada dhacaya indhaha saa loo waa la jaraynaya markii gaal la arko oo dhimashadu miyay isbedeshay soo dhimashadu tii uun maaha la dhiman jiray hal mar soo taa maaha naftu hal mar kaa dhacaysay goorma ciidig iyo sharaftii la iibsaday Falastiin miyaa u baahan in qaxooti laga dhigo waxa la yaab leh Trump wuxuu yiri qaxooti ma aqbalayo dadka waa xaqaya hay qaxooti dalkayga imaan karaan ma jiro hadii uu midab leeyahay oo madow yahay hal qaxooti aan ogolahay South Africaanka cadaanka aan ogolahay South Africaanka cadaanka ay meeyaaba qaxooti horaba inay baxaan waa u baahanahay oo nooga baxan Afrika laakiin ma baxayaan meel lama socdaan meesha iyaga haysto degano hantidii ugu badnayd iyo dhaqaalihii ugu badnayd dhulkii ugu weynaa iyaga free state gobol dhan oo la yiraahday waxa la yiri Falastiin wuxuu yiri waa qixinaya waa ka saaraya waa dhisaya real estate beautiful ah baan ka dhisaya oo waterfront ya badda saa u saaran adduun halka waxa meel ugu dalxiisay noqonaysa waxa ay xageed dadka geynaysa Masar iyo meelahaas aan ku guraya waxa ay faafinaysaa Yahuud qoraalladoodana iyagu ay soo saareen qayb kamid ah Republicaanka oo lacag ay ku siiyaan iyagu inay ajendahaas wareejiyaan oo propagandadaas wadana ay wadaan in Soomaaliland iyo Puntland la geyn doono Falastiiniin Arabkaas wuxuu itiraafay Jordan haysta in uu 2,000 oo qof qaadayo waa bilo waa dhamaatay mar hadii la bilaabo qaxooti in la qaado oo dad la raro 2,000 cunug baan qaadaya macnaheedu waa 2,000 cunug 2,000 reerood way halkaas waxa ku baxaya dad aad u tiro badan laakiin Falastiin dadka jooga waa dad nacdan leh oo dun leh oo aan aqbalayn dhulkooda in la qaato ilaa daqiiqada ugu dambaysa inta qofka ugu dambeeyna fi ku jirto waa ku dagaalameen 70 sano saa loogu leeyay mana dhaqaaqaan mana haba yaraatay gabadan waxa ku xigtay
waxaa la yidhi falastiin maad waddankaaga geysid taraamo wuxuu yidhi falastiin aad bay u fogtahay waxay u jirtaa baa la yidhi 5,000 oo kilomitr oo South Africa oo kasii fogo 8,000 oo kilomitr ku jirta soo adiga la cadaanka jooga ha yimaadeen cadaanka Yurubiyaankaana waa loo ogolyahay taraan banaanku soo dhigtay mana qarsanayo inuu raysiista yahay cunsuri yahay dadka madow oo dadka cadaanka waxaan ahayn aan arki karin muslimka nacab banaanku la taagan yahay kuwii u jawaabi lahaa waa wada jalboonayaan kulli boodiyaas la dhacay marka xasan la soo galo hada warkeeda badaa kuwaasi haday jaraynayaan xasan awal baan ogeyn oo rukuuc iyo sujuud ku jiray markuu ajnabi afrikaan arko oo waliba xataa kuwa uu ka adkaan karo saa u ruxmay u gariinay markuu kaas soo galo waxay la tahay horu ka aqbalaya mar dhow marka Soomaaliyeey waxa sugtaan waa dalka oo gacantiina ka baxa iyo dalkaas oo dad kale ay la wareegaan intaasan idin la hadleen oo lahayn war ka kaca war halays garanaysa hala kaco oo waxaan ganacsatada siyaasiyiin ma aha la iska qabto maanta loo imaanaya wixii aan sheegi jirnay in badan aan ka digeen